annagu waxa weeye dawladda la Soomaaliland ma baaragno meel ay joogtana ma aragno maanta ay sanduuq doonayso bay noo timaad deegaanka gaacid ama xidhxidh ama cashaba laag hoostiisaba ma baaragno meel ay maraysoba waxay noo qabatayna ma jirto beer wax noogama qaban wado wax noogama qaban wax allaale waxay noo keentay ma jirto marka waxaanu ka codsanaynaa dawladdu inay haddii dawladdu dalkeedii uu yahay ay xukumayso Soomaaliland inay macnaha ay wax qabad noo keento oo horre annagu waxaanu nahay buuraleyda guris deegaanka xidhxidh iyo gaacid haddii aanu nahay intii ay dhisnayd dawladda Soomaaliland wax kaalmo ah haba yaraatee kamaanu arag sarac kama arag soo eegis kama arag biyaha nooma kordhin wax nagalama qaban xagaafka wax noogama qaban haddii xogay mar baa noo yimid la oran jiray in magac lahaa maxaa magaciisa wuxuu ahaa magaciisa waxa loo jeeday xagla toosiye ninkaas marbuu intuu noo yimid si salaamo maalin la joogay dhagax dhig caafimaad buu noo sameeyay NGH ah naguma soo u noqon warkaas war beena oo buu nagu noqday wax kale oo cid kale oo dhaqdhaqaaq oo na soo booqatay xitaa maanu arag waxaan u leenahay waxaan u baahanahay caawimo fara badan dhulkan abaaro fara badan baa ka dhacay haddii xugmayo waxaan dawladda ka doonaynaa kaalmeyn xagga biyaha iyo saaqiyada iyo ceelasha iyo xagaafka iyo saracada caafimaadka intaasaan aad iyo aad ugu baahannahay dawladda waxaan ka codsanaynaa wasiirka beeraha ma aragno horta wasiirka beeraha lagu sheego Hargeysa sooma dhaafo wadankana war kama hayo wasiiraduna nooma yimaadaan argaabay soo gaaraan halkaas ay war ka sii qaataan war beena geeyaan waxaanu leenahay wax qabashaan u baahanahay dawladii hore waa nala shaqayn jireen wadayna la dhiseen ceelashay nala qodeen waa nala tabceen wax allaale waxaanu ka aragnay dawladda Soomaaliland ma jirto dad badan baa yaala hadda intayada maaragtay yaala ma aha waxa weeye 200 oo reer baa yaala midlan halka kan aynu joogno waana beeruna waa naga sii horeeyaan shumax iyo gugur iyo hadii la bureediq iyo ba dhinaca naga sii xiga waxa naga dambaysa meeshii hareed la baxday oo maartay hareed casho hooyadeed baa ahayd ayaa naga dambaysa dadka meesha yaala waxa lagu metelaa in dhowr kun oo qof baa lagu metelaa dadkaasu wali qof san intii ay dawladda tanu jirtay tani kulli intii ay jirtay wax na dhex maraya oo nale maxaa qabtaan iyo maxaa tihiin iyo maxaa hadii idin hela midna anagu ma arago dawladda ka soconaysa haday wasiir tahay haday alaba koriyo isduwayaalka beeraha tahay haday alaba koriyo dadka wax qabadka tahay haday kuwa dhaqtar wax ka qabta tahay haday daawooyin tahay marka waxaanu leenahay waanu sugaynaa dawladda wixii ma garanaysa baahi aanu qabno nooc kastana waanu qabnaa waxaanu u sheegaynaa xukuumadda Muuse Biixi Cabdi Soomaaliland xukuumad badan baa ka soo shaqeeyay hadda haysata Muuse Biixi Cabdi uu madaxweynaha ka yahay annagu wax kaalma waanu ka aragnayna ma jirto horumarina kamaanu arag waxaanu u baaqaynaa waanu u sheegaynaa waanu leenahay wadalkaagii wadalkaadii waad xukumi jirtay wadadkii ku cudeeyay baanu nahay dadka codkooda ku soo baxday baanu nahay waxaanu leenahay wax allaale waxaanu ka haynaa ma jirto horumarin haday tahay iyo kaalmeyn kale haday tahay baaqaasaan u jeedinaynaa inuu wax qabad iyo horumarba inta baanu waa ka sugaynaa wax caafimaad ay leedahay totally ma jirto waqtigeeda kamid ah ayaa waxa noo yimi dawladii uu garwadaanka ahaa maxamed axmed siilaanyo wasiirkii caafimaadka Mr. Xagla toosiye wuxuu noo goob caafimaad buu noo dhaxdhigay waqtiga waxa ka dambeeyay dhowr sanadood kama hayno waxa noogu daranay waxa weeye caafimaadka hadda waxa jira halkan inay joogno shuban baa ka jira biyihii baa wasakh laga qaatay guriyo badan baa laga jiifaa arrintaas waxaan leenahay caafimaadna la soo gaaray arrintaas waa arrin jirta weeye